dunida ayaa hoy u noqotay 8 bilyan oo qof. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in tirada guud ee dadweynaha ku nool caalamka ay hadda tahay 8 bilyan oo qof. Kororka xilligii casriyoobidda bulshada iyo soo degidda magaalooyinka ayaa qayb weyn ka ah kororka bulshada caalamka. bilowgii kacaankii warshadaha ee casriyoobidda bulshada dadka ku nool adduunku waxay ahaayeen 1 bilyan. sanadkii 1960kiina waxay ahaayeen 3 bilyan, halka sanadkii 1987diina tirada dadka ku nool caalamka ay ahaayeen 5 bilyan. waxaa sii kordhayay tiradaas ilaa sanadkii 2010 ay gaartay 7 bilyan. maantana waa 8 bilyan oo ruux. wadamada ugu dadka badan caalamka waxaa ka mid ah China oo 1.46 bilyan ah. India isagana dadkiisa waa 1.40 bilyan. waxaana la saadaalinayaa in India sanadka 2023 ay ka kormarto China ayadoo noqonaysa waddanka koowaad ee ugu dadka badan caalamka. Qaramada Midoobay ayaa saadaalinaysa in marka la gaaro sanadka 2050 ay dadka dunida ay gaari doonaan 10 bilyan. 2 bilyan oo ka mid ah waxay ku kordhayaan wadamada Sub-Sahara ama wadamada Afrika ee Saxaraha ka hooseeya oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Nigeria, DRC Congo iyo Tanzania. Soomaaliya oo qayb ka ah dalalka ku xusan xogta Qaramada Midoobay waxa ay dalalka dadkooda ay ugu badan yihiin caalamka ay kaga jirtaa kaalinta 74aad. waxaana tirada dadka Soomaaliyeed lagu qiyaasay 17 milyan. 20 sanadood ka hor sanadkii 2000 tirada dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasay 8 milyan, waxaana kaalinta 83aad ay kaga jireen dalalka ugu tirada badan dadkooda caalamka. maantana waa 17 milyan, waxaana ay soo gashay kaalinta 74aad, taasoo la mid ah in bulshada Soomaaliyeed 20 sanadood gudahood ay ku korortay 9 milyan oo ruux. waxaana ay Qaramada Midoobay qiyaasaysaa in sanadka 2050 tirada dadka Soomaaliyeed ay gaari karto 30 milyan. kororka dadka Soomaaliyeed waxa uu ka dhignaan doonaa in suuq weyn loo helo adeegyada iyo wax soo saarka dalka, taasoo horumarro dhinacyo badan u horseedi karto dadka Soomaaliyeed. waxaad qof ka tahay 8 bilyan oo ruux oo ay dunida hoy u tahay. sideed u aragtaa kororka tirada dadka Soomaaliyeed ee marba marka ka sii dambaysa sii badanayo?